waxaan wanaagsan laantiin baa khiyaarta hawada nagala socota meel walbo naga daawanaysaan iyo si walbo inoo daawanaysaanba waqti waayadii macnaada qodobada muuqaalka aad ku daawan doontaan hadduu allaha ugu dilo ogolaadana waxaa ka mid ah fiirkii Itoobiya uu isaga baxay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka faahfaahinta dagaal culus oo ka dhacay Muqdisho madaxweyne xasan sheekh oo u dhoofay Eritrea iyo ujeedka xog ayaan idinkaga hayaa dhanka kala dani oo noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee dib loogu doortay Puntland iyo waliba sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya oo war ka soo saartay dib u doorashada dani qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ayaan dul istaagi doonaa suurwada muuqaalka sii sheegay oo meel fog nala gaarsiiya kuma sanadiin aynu ku bilownay daawada safiirkii Itoobiya u fadhiyay magaalada Muqdisho Danjire Mukhtaar Maxamed Waare ayaa shalay isaga baxay magaalada Muqdisho kuna laabtay dalkiisa sidii la wareediyay waxa xaqiijiyeen warbaahinta wali macada haddii safiirka ay ceerisay dowladda federaalka Soomaaliya haddii ay u yeertay dowladiisa Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa labadan waxwara ka soo saareen bixitaanka safiirka ayaa timid 5 maalmood kadib markii Soomaaliya ay u yeertay safiirkeeda Itoobiya ayadoo ka careysan heshiiska Itoobiya la gashay Somaliland oo sida la sheegay lagu siiyay qayb ka mid ah badda Soomaaliya dhulbadeedkaas oo dhan 20 kiiloomitir ayay Somaliland sheegtay inay ku bedelatay in Itoobiya ay siiso aqoonsi ayse Itoobiya wali ma xaqiijin inay aqoonsan doonto Somaliland balse waxay sheegtay in markay hesho badda kadib ay darsi doonto sidii ay mowqif uga qaadan lahayd arrintaasi xaqiijin la'aanta Itoobiya ayaa abuurtay shaki badan oo ku yimid qaar ka mid ah dadka reer Somaliland ee markii hore taageersanay heshiiska kuwaasi oo hadda bilaabay inay su'aalo ka keenaan tallaabada uu Muuse Biixi qaaday dhawaan ay ahayd markii caro xooggan ay ka dhalatay kulankii dowladda Soomaaliya la yeelatay xubnaha beesha caalamka ee fadhigoodu yahay Muqdisho kaasi oo ka soo muuqday Danjire Mukhtaar Maxamed Waare shirkan oo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya isugu yeertay danjireyaasha beesha caalamka ayaa waxay u warbixisay xaaladda go'aanka Soomaaliya ee ku wajahan xadgudubka Itoobiya ee madax-bannaanida dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya arrinta yaab kale ayaa ahayd in isla shirkan looga hadlayay xadgudubka Itoobiya uu fadhiyay safiirkeeda taasoo dad badan ay ka falceliyeen siyaasiga caanka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo sidoo kale ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa ka hadlay arrintan wuxuuna sheegay in laga habboonaa in safiirka dalka uu sii joogo kana soo dhex muuqdo shirkii looga hadlayay xadgudubka dalkiisa ma ahayn in safiirka Itoobiya uu weli dalka joogo oo maanta dhex fadhiyo diblomaasiyiintii xadgudubka dalkiisa lagala hadlayay waxay ahayd in uu yaraan dalkiisa loo diro haddii xukuumaddu xilkeedii gudan weysay waa in baarlamaanku waajibkiisa gutaa ayuu ku yiri war qoraal uu soo saaray xildhibaanka dhanka kale faahfaahin culus ayaa ka soo baxaya dagaal ka dhacay xalay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kuwaasi oo isfara saareen ciidamo ka kala tirsan dowladda dagaalkan ayaa si gaar ah uga dhacay xaafadda Haanta Dheer ee degmada Daynile halkaas ay ku dagaalameen ciidamo ka kala tirsan booliska iyo militariga Soomaaliya wararka ayaa sheegay in dagaalka uu ka dhashay muran hareeyay dhul ku yaala halkaasi oo booliska ku amreen inay ka guuraan dadka shacabka ee degan amar kadib ayaa waxaa la sheegay in xaafad yimaadeen ciidamo kale oo militari oo hubeysan isla markaana u abaabulan habbeeleeda kuwaasi oo la dagaalamay ciidamada booliska Soomaaliya ee isku dayay inay dhulkaasi ka raraan shacabka degan goobjoogayaal ayaa inoo sheegay in dagaalkan uu qaatay saacado badan isla markaana ay maqlayeen rasaas ay isu idaarsanayeen labada ciidan lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkan maadaama ay xilli habeen waxaana haatan xaaladdu ay tahay mid degan maaha markii ugu horeysay oo ay dhulkan ku wada dagaalamaan ciidamo ka wada tirsan dowladda waxayna dhacday dhowr jeer hore taasi oo sababtay dhimasho iyo dhaawac si kastaba ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka degmada Daynile iyo saraakiisha amniga Soomaaliya oo ku aadan dagaalkaasi dhanka kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta u ambabaxay dalka Eritrea
isagoo goor ka duulay garoonka Aadan Cadde ay ku sii sagootiyeen mas'uuliyiin kala duwan. Xasan Sheikh ayaa Eritrea u aaday wadahadalo gaar ah oo la soo yeelan doono dhigiisa dalkaasi. Siyaasi Afwerki sida ay shaacisay bila Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa safar shaqo u amaabaxay dalka Eritrea, halkaasi oo uu kula kulmi doono madaxweynaha dalka Eritrea Mudane Siyaasi Afwerki ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. Wararka ayaa intaasi ku sii darayay in kulankan lagu soo qaadi doono xiisada ka dhalatay heshiiskii koodii bishan wada gaareen Somaliland iyo Itoobiya. Madaxweyne Xasan ayaa tan iyo markaasi raadinayay taageerada wadamada gobolka iyo caalamka, isagoo la xiriiray madaxweynayaasha Masar, Turkiga iyo Amiirka Qatar. Sidoo kale madaxweynaha ayaa xiriir toos ah la sameeyay ururka Midowga Yurub oo uga mahadceliyay sida ay garab istaagga ugu muujiyeen madax-bannaanida Soomaaliya. Dhanka kale madaxweynaha ayaa inta uu joogo waddanka Eritrea booqan doono ciidamada Soomaaliyeed oo weli tababar ku qaadanaya gudaha dalkaasi. Booqashadan waxaa ka horreeyay kuwo kale oo horey madaxweynuhu ugu bixiyay Asmara kadib dib u doorashadiisii oo ku laabtay sababo la xiriira ciidamada Soomaaliyeed ee lagu tababaray dalkaasi, kuwaasi oo qaarkood haatan dib loo soo celiyay. Dhanka kale waxaa goor soo dhamaatay doorashadii madaxweynaha Puntland oo saaka ka bilaabmay gudaha magaalada Garowe. Doorashadan oo ahayd mid xasaasi ah ayaa waxaa la isla soo gaaray wareegii saddexaad, waxaana isugu soo haray laba musharax oo kala ah Siciid Dani iyo Guuleed Saalax Barre. Dani oo mar kale dib loo doortay ayaa helay codad gaaraya 45 cod, halka musharaxii la tartamayay Dr. Guuleed Saalax Barre oo isna helay 21 cod sida uu natiijada rasmiga ah ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Axmed Saciid. Siciid Dani ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee dib loogu doortay Puntland tan iyo markii la aasaasay maamulkaasi oo 25 sano jirsaday. Tani ayaa meesha ka saaraysay isbeddelkii la filayay inuu ka dhaco maamulka Puntland oo ay si weyn isku hayeen dowladda federaalka Soomaaliya. Iyo ku-xigeenkiisa cusub ee la dooran doono ayaa waxaa horyaala howlo adag ay ugu horeeyaan madmadowga kala dhexeeya dowladda dhexe iyo inuu Puntland gaarsiiyo qof iyo cod. Sidoo kale waxaa haatan la gudagalayaa doorashada madaxweyne ku-xigeenka labaad oo ay u taagan yihiin ilaa 11 musharax oo iyana shalay jeediyay khudbadahooda. Dhanka kale ammaanka ayaa sidoo kale aad loo adkeeyay iyadoo bandu soo bilowday xalay lagu soo rogay Garowe, kaas oo soconayay inta ay dhammaanayso doorashada. Puntland ayaa maalmihii u dambeeyay ku jirtay xaalad adag oo ka dhalatay muranka hareeyay doorashada, kaas oo maanta soo dhamaaday kadib dib u doorashadii Siciid Cabdulaahi Dani. Dhanka kale war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay doorashada maamul goboleedka Puntland ee maanta ka dhacday Garowe, taas oo mar kale xilka madaxweynaha dib loogu doortay madaxweyne Dani. Wararka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa Dani ugu hambalyeysay guusha uu ka gaaray doorashadii ka dhacday magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hambalyo u dirtay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Siciid Cabdulaahi Dani oo maanta mar kale loo doortay inuu sii hayo talada, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Sidoo kale waxay dowladdu u rajeysay madaxweynaha dib loo doortay inuu eebbo u fududeeyo mas'uuliyadda culus ee mar kale loo igmaday. Waxay dowladda Soomaaliya u rajeynaysaa madaxweynaha la doortay inuu Ilaahay u fududeeyo gudashada waajibaadkiisa shaqo, ayaa mar kale lagu yiri qoraalka. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu bogaadiyay shacabka Puntland, musharaxiintii tartantay iyo baarlamaanka sidii ay u wajahayeen doorashadii adkeyd ee maamulkaasi. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay ugu dambeyn ku bogaadinaysaa shacabka, musharaxiinta iyo baarlamaanka Puntland sida hufan ee nabadda leh ay uga soo wada shaqeeyeen qabsoomidda doorashada muhiimka u ah horumarinta dowlad dhiska Soomaaliya, ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraal ka soo baxay dowladda federaalka. Dib u doorashada Dani ayaa ku soo aadaysa iyadoo weli heshiiskii uu yahay khilaafka xooggan ee kala dhexeeya dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Siciid Dani. Qabashada doorashada ayaa meesha ka saaraysa xaaladii adkeyd ee ka jirtay Puntland, taasi oo ku dhalatay muranka hareeyay doorashada maanta soo dhamaatay.
dadka muuqaalkeen intaas ayuu ku eegahay muuqaalkan muuqaal xigeentaan kulmi doona sidaas nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.